maanta bisha u horeysa sanadka waxaan leeyahay anigu waxa weeye waxay noqonaysaa January halkan la soco green halkan ay maray inta oo su'aal ayaa dhiman oo la rabo inaan soo buuxiyo waxaan leeyahay markaas aan waqti kaaga lumin next waxaad gelisaa passwordka administratorka wala soco weynii hore u soo sheegay barnaamijka wuxuu leeyahay qayb security waxaa la rabaa qof kasta oo shirkadda ka shaqeeya in shaqada uu leeyahay loo dooro user password ku habboon la siiyo si shaqadiisa ugu shaqeysto qof kasta wixiisa gaar looga dhigo marka kale waa kii administratorka oo ah qofka ama general managerka noqonaya ama qofka managerka ka noqonaya barnaamijka passwordka uu ku shaqeyn lahaa weeyaan marka for example password fudud ayaan isaga sii qoranaya adigu passwordka doontid ee gasho stage marka la joogana waa optional oo waad iska tagi kartaa optional ay aragtid su'aasha macana isagoo banaan baa ka tagi kartaa weeye oo hadhow ayaad awood u leedahay inaad buuxisid company file-ka ayuu hadda abuuraya oo meeshii computerka laga dhigi lahaa ayuu leeyahay sheego kasoo company file-ka xagga lagu dhigo barta uu yaalaba folderkaas halka yaa la yidhi haddii kale dhaarashanka ama root-ka ka leexin karayaa haddii aad barnaamijyada office ka taqaanid dabcan inta iska sahalo ayaan rajaynayaa midna waxaan leeyahay safe sida ku muuqata wuxuu save gareynayaa file-kan magaciisii computerka halkaas haddeer aan doortay ayuuna kaaga dhigayaa waayahay time yar ayuu qaadanaya already wuuba dhameeyey safekii halkan wuxuu ka eegayaa customizing cookies for your business ayuu ka hadlayaa saleski iyo waxaas ayuu ka hadlaya customerskaaga billiski waxaas ayuu ku saabsan yahay waxaa tira next what do you sell maxaad iibisaa oo ka ganacsataa la yiri service only ba service waan garanaa inaga hore soo sheegayo oo iskuulada iyo jaamacadaha iyo wixii la mid ah service ama isbitaalada shirkadaha isgaarsiinta oo kale xawaaladaha oo kale waxaas oo wada service marka anu waxaan leeyahay waa product raashin ayaan ka ganacsanaya shirkadeena waa shirkad ka ganacsanaysa maxay raashin sonkor bariis bur ayaan ka ganacsanaysa marka waxaan leeyahay product online ayaan qaadanaya hadda labada ka ganacsanaysa labada motooro just an example ayaan ku siinayaa shirkad ka ganacsata raashinka hadda shirkadda isla fahanayna oo aad baraas ku samaysidna adoo aad ku dabaqi kartaa shirkadda oo ka shaqeyso dhar sidoo kale shirkad kaliya maaha meheradaha yar yar ee carwooyinka ah ayaa barnaamijkan isticmaali karaya waxaa kaloo isticmaali karaya booshariyada dukaamada yar kulli way isticmaali karayaan ganacsi oo dhan baa loo isticmaali karaya waxaan leeyahay markaa next marka hadda shirkad leeyahay haw fahminuun shirkad lacag fara badan oo malaayiin taalo oo haysoran ar meesha aad yartahay wax yar yaalaan kuma shaqeyn karaysaa haysoran marka wax kasta waad ku shaqeyn karaysaa next do you sell product online ganacsigaaga ma ku iibisaa online qaab online oo website waxaan ku iibisaa waxaan leeyahay markaa raashinkan mar hadduu yahay magaalada laascaanood ay tahay wax online wax ka iibiya hab yaraatee ma jiraan taas ayaan dooranayaa tan oo kale waa charge sales tax cashuuraad iyo wax ma lagu saaraa waxaan leeyahay maya for example estimate iyo waxaas ma jiraan waxaan leeyahay haa ما استعمالها sales receipt waxa waa cash waxaan ku iibisaa marka waxaan cash waxaan ku iibisaa waxaan leeyahay yes haddaan noo yiraahdo hadhow to cash inaan ku iibiyo barnaamijka uu yeeli maayo deyn kaliya ayuu aqbalaya in lagu iibsado kana waxa weeye do you want to use billing statement ma isticmaashaa billingka statement oo in yani lagu statement gareeyo qof kasta wixiisa gaar ah adoo heshid billingkiisa shid ma baahanta waxaan leeyahay qof kasta gaar ayaan u doonayaa wixiisa helo kana kale waxa uu diyaar ma u tahay in lagu sameeyo invoicing dayman barnaamijka deyn ku shaqeynaya waxaan leeyahay haa haddaan noo doorto dad minis macnuhu waxa weeye barnaamij cash kaliya ayuu ku iibinayaa deyn qofka hadduu yimaado deyn waxba ku siin maayo weeye ku qaybin maayo oo tan noo maxaa recommend loo yiri inta badan businessku deyntu way kicisaa marka businesskaaga haddaad meherad leedahay inta badan ka taxadar deyntu way kicisaa meheradaha ama ganacsiyada inta badan marka yes ayaan leeyahay laakiin businesskan waxaan leeyahay yesna deynna waan bixinaya tanna waa track bills of yugi waxaan leeyahay yes do you print checks waxaan leeyahay no check waxaanu ma isticmaalo inventory-gaaga ma u baahan tahay in lagu hayo inventory waa waxa laga ganacsanayo ee faa'iido iyo khasaaraba keenaya shayga markaad iibsid faa'iido khasaaro waxa la oranayaa inventory ee ka ganacsanaysid ka inventory-gaygu waxaan leeyahay yes waan u baahnaa inventory accept credit cardku waa inaad isticmaasho waxa la credit card isna waxaan leeyahay ma aqbalayo oo credit card ma isticmaalayo waa kaararkan laga iibsada bangiyada inta bay deynta lagu dalacayo time-kan waxaan leeyahay iska ka hagaaji wixii time tracking ku samee employee ma haystaa waxaan leeyahay employee waan haystaa shaqaalaha aad bay fara badan yihiin we have kun iyo intaas ama laba intaan doona check saar karaya qorshi dhib ma laha shaqaalaha waan haystaa weey
accounts quick books waxaan leeyahay haa baladinagee waayahay goorma xista shaqada shirkadaada bilaabanaysa waxaan leeyahay beginning of the fiscal year bilowgii sanadkan oo ah kowdii bishii koobaad 2013 waxaan leeyahay xilligaas ayaan statementyadii ama financialkaygu bilaabanaya haddii kale waan odhan karaa inaan lahdo use today oo maanta hawsha ha bilaabanto maanta waa maxay bishii February 10keedii ka maanta odhan waxaan leeyahay sanadkoo dhan ba iga dhig fiscal year ka biisida inaan shaqaynayo iga dhig oo xilligaas shirkadda bilaabayaan su-aasha halkan ku jirta waxaa weeye ma jira banki lacag kuu taalo waxaan leeyahay waxayga anaa dib anaa gashan doonee haddii bankigan kuu sheegay stagekan abuuridda ku barnaamijkan abuuranayo kuu sheegay meel lacag taalo dib baan ka sheegi doonaa bangiyada aan isticmaalay meelaha lacagtu yeelaan waxaan iska leeyahay next halkan waxaa la siinayaa review income and expense accounts accountnada inta badan shirkadda soo dooratay ee wholesale-ka ahayd ee product nooceedu ahaa accountnada isticmaalka dakhliga waa sales shipping and delivery incomes waa lagu soo ururiyay oo qolada teamka ku sameysay ayaa ku saabaysa ku soo ururisay ku soo nadiisay marka kuwa sidooda ma qaadanaysa mise adiga ayaa check waad ka qaadi kartaa waxaad accountnadan ma isticmaalay waad ka qaadi kartaa check ka rabin disiisa u daayay leedahay waxa ku haboon sideed iska deesid sidoo kale awood waad u leedahay dhowto inaad account cusub aad ku darsatid marka waxaan leeyahay kuwan automatic ah la sameeyay sidooda igu daa sidaas waxaan ku leeyahay marka finish oo waxaan halka ku dhameeyay sida ku muuqato steps-ka 3-ka ee la soo weydiiyay ku saabsanaa abuuritaankii barnaamijka cusub ee quick book-ga aan soo waafajinayay magaca shirkadayda iyo waxaan ka shaqeysto haddaan ku celiyo book-ga casharada